Dunidaanu waa dhibaato socota. Dhacdadaani waxay xalay ka dhacday magaalada Kismaayo. Haddii ay ku dhibayso ama aad calool jilicsan tahay, bariis walaal ha dhegaysanin. Nin dhowaantan guursaday oo lagu magacaabo Xuseen ayaa u socday gurigiisa kadib markuu ka soo baxay shaqadiisa. Saacaddu waxa ay ku beegneed 4:30 PM. Xaaskiisa ayaa guriga ku sugaysay inuu u yimaado. Intii uu waddada ku sii jiray, Xuseen waxa uu arkay gabar yar oo aad u qurux badan. Gabadhu waxay taagneed waddada dhinaceeda, waxayna sugaysaa tagsigii qaadi lahaa. Xuseen waxa soo jiitay gabadha quruxdeeda, waana u istaagay si uu ula hadlo gabadhaani. Laakiin nasiib darro, gabadhii wax dareen ah ma aysan siinin oo waa iska indho tirtay. Xuseen gaarigii ayuu ka soo degay, wuxuuna u soo dhowaaday gabadhii, laakiin weli wax isbeddel ah oo gabadhan kama uusan helin. Waxayna bilowday inay socoto si ay uga fogaato isaga. Isaguna kama harine waa iska daba dhigtay, wuxuuna daba socday ku dhowaad 30 daqiiqo. Wuuna is iloobay inuu xaaskiisa sugayso ama xaaskiisa ay ku sugayso xaafadda. 30kaas daqiiqo oo gabadha daba socday, warba ma uusan haynin. Si lama filaan ah ayaa gabadhii u istaagtay. Inta soo jeesatay ayayna ku tiri, waryaa, waan garanayaa sababta aad ii daba joogtid iyo waxa aad iga rabtid. Wuu u dhoola caddeeyey, kadibna wuxuu damiyey taleefankiisa ama moobilkiisa, maxaa yeelay wuxuu ka cabsaday in xaaskiisa soo wacdo ayna ka carqaladayso sheekada asiga iyo gabadha dhex marayso. Markaas saacaddu waxa ay ku sii dhowaatay waa 5 PM. Gabadhii waxay u sheegtay inay u samaynayso wax kasta oo rabo haddii uu fuliyo hal shuruud. Kadibna wuu ka aqbalay inuu fulinayo shardigaasi. Gabadhii gaariga ayay gashay, wuxuuna u kaxeeyey hotel yar oo Xuseen sida badan u tagi jiray. Markii ay qolkii tageen, Xuseen wuxuu iska siibay dharkii. Markii uu rabay inuu howlgal fuliyo, wuxuu la yaabay wuxuu arkay. Hadda ma dhegaysanaysa? Ma sugaysa hadda Xuseen iyo gabadha waxay sameyn rabaan? Walaalayaal, intaan ka badan been ma idiin sheegi karo, ma fahmaysaan? Ana xataa waxay sameeyeen ma ogi. Intaan ka badan been waaye. Marka weli jeceliya idinka badatay. Ana xaafadayda joogaa, mina wax iga qaadaysiin oo i bukoy kartiin. Xaafadayda ugu imaada. asxaabteyda sheekadan waxay sheeka Braga la dhahaa. Braga idinku sameynayay video Braga waa aragteen, call Braga waa aragteen, wax walba Braga waa aragteen, laakiin sheeka Braga maadan arkina. Sheekadan waa sheeka Braga ahayd. aad iyo aad waa masantiin. waxaa u maleynayaa inta sheekadan ay socotay qof walba qiiradiisa wuu isbedelay. qofna murugo dareemayay, qof wuxuu isdhahayay goormee waxa maxay sameyn rabaan. qof waliba maskaxdiisa waxba ku taagnaa. Marka community-ga hoos ku soo qora qof walba markuu sheekada dhageysanayay wixii maskaxdiisa ka guuxayay oo islahaa, ama qofka murugsanaa ama qofka islahaa maxay ku dambeyntood sheekadan qofkii islahaa maaragtay. community-ga hoos ku soo qora insha Allah. halkaas ayaa idinka aqri doonaa.